marka ta muhiimadda ahayd inaan halkan nimaadno ee intaan soo socdaalno waxa ahayd inaad wixii inagu dareentaan inaad inagu leedihiin ownership-ka dareentaan aad inagu contribute garaysaan aad wixii nin walba halkay bugtaa isagii bilbashaabi Soomaalidu tiraahdaa halkeeda inagu aad xoqataan tiraahdaa halkaas anaga noogu daran marka intiina way timid alxamdulillah kulli anaga qasayfir walahaan mar kasta waxa naga go'an inaan ahmiyadda koobaad siino Tibek maadaama Tibek ay tahay institution u taagan horumarinta doorashooyinka Puntland aniga oo ka wakiila inta iga sareyso Peter iyo Cabdijaliila runtii waxaanu mar walba diyaar u nahay anagoo imikana diyaar u sii horena la soo shaqeynay halkaana kala shaqeyn doona insha Allah waxaan isku ogaanaynaa inaan wixii soo baxay fursadaba cid ugu horeysay lambar 1 ka dhiganay tahay Tibek waxaan rajaynaynaa sidii Ismaaciil sheegay wax walba wada shaqeyn oo guddiga doorashooyinka Puntland oo runtii waajib nagu ah maadaama aan nahay muwaadiniin reer Puntland guddiga doorashadu waxay nooga baahan yihiin gacan waxay nooga baahan yihiin hiilka iyo gacantana waxa ugu horeeya inaanu shaqo walba oo la qabanayo anaga shuruud ku xiran ama ha noqoto waqti ama ha noqoto waxa weeye gacan intaba inaanu ka geysano marka insha Allah diyaar baan u ahay aniga iyo cidinta xafiiska joogta insha Allah inaan guddiga doorashada soo dhaweyno lana shaqeyno operation balaanka halka lagu dajiyay runtii oo wax badan iiga dhex muuqdeen aniga laftigaygu wax iiga kordheen wax badan inaan ogaado oo voter education kan iyo laftigiisa aniga laftigayga aad iigu cusbaa idinku hore u taqaaneen laakiin aniga iigu cusbaa runtii tan laftigeeda anaga waxay noo saamaxaysaa xitaa markaan balaanada sameynayno mar hadda operation balaanka ka qayb galnay waxay noo saamaxaysaa markaan balaankayga sameynayno already waxaan ognahay balaanka Tibek ayagana u yaal marka waa iswaafajin karnaa marka runtii aad baan ugu mahadnaqayaa qolada Saferwell oo hawshan culays badan gelisay waqti badan ku lumisay aan rajeynayay in wax midho dhala ay yihiin wixii hawsha ay qabteen ay ka soo baxaan qolyahan kale waxaan iyagana uga mahadnaqayaa dee hawshan maadaama ay soo wadeen haddana rabaa inay sii wadaan iyadoona cidina ku waxaynahayn laa shukr cala alwaajib ay hawlaha iyagu iskooda isugu xil saareen oo wax motivation oo jira iyadoona aanay jirin iyagu ay iskooda wadaan hawshan iyada ah dhammaantood iyagana waa idin salaamayaa qoladan Saferwell waxaanu kaloo kasii rajaynaynaa hawshaas hadda waxbay qabteen ilaa iyo xad inay intaa kale sii dhowaadaan oo sii kordhiyaan oo meeshan ay si fiican establish uga dhigaan magacaygu waa Lidaa Saalax Maxamuud xogayaha guddiga doorashooyinka Puntland runtii Cabdirasaaq oo maantay oo ay tahay 11 bisha May 2018 halkan waxaa ku soo dhamaaday tababar soo bilowday 7 bisha tababarkaas oo runtii ahaa tababar ay fulinaysa hay'adda Saferwell oo partnership nala ah guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibek waxa lagu bartay uga koobnaa laba phase oo ah phase koowaad oo ah capacity building loo sameeyo guddiga iyo shaqaalihiisa iyo ka labaad oo ahaa operationalkii voter education iyo civic education si timeline framework loogu sameyn lahaa iyadana team baa loo sameeyay Tibek dhexdeeda ah oo anigu aan hogaaminayo ugu xoogani kaliya Ayuub Muuse Maxamed iyo shaqaalaha iyo commissionerska insha Allah waxaan filaynaa inaan team from ka sameeyno ka shaqeyno waxaan u mahadcelinayaa commissionka shaqaalaha iyo marka koowaad oo in mahadcelinayaa hay'adda Saferwell iyo partnership tababarku wuxuu ahaa mid aad u qoseeyay shaqada Tibek ballaaran ay hayso oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka topigyada muhiimka u ah maadaama Tibek ay tahay midda qaabilsan inay hore u riixdo oo dhaqaajiso doorashooyinka Puntland marka maadaama operationka shaqada dadkii qaban lahaa aan nahay waxaana la baray tobigyo ku saabsan si shaqada loo bari lahaa noo aan wada lahayn ay ka mid tahay voter education-kii iyo qaabkii magaranaysa codaynta iyo dadka maartay loo wacyigelin lahaa logical framework iyo sidii loo qorsheyn lahaa doorashooyinka activity-yada ay doorashooyinka lagu qabanayo si loo qorsheyn lahaa iyadana sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha nala baray bay ka mid ahayd tababarka wallaahi aad iyo aad baan ula dhacsanayn sababtoo ah waxyaalo badan horeyna aan u soo aragnay oo ka soo shaqeynay sida voter education-kii iyo training manager-kii oo kale aad iyo aad baan uga baxay waxyaalo badan baan ka diyaarinay voter education-kii qaabkii dadkii loo wacyigelin lahaa qaabkii loo gudbin lahaa wallaahi waxaan leeyahayna isbedel weyn baanu dareemaynaa horey ku socodna aad baan u samaynayo wax badan baa ka soo baxay feedback aad u wanaagsan barakaatu magacaygu waa Cabdinuur Xasan ka tirsan shaqaalaha Tibek
qaybta legalka runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta in tababarkii 5 bari la soo dhaafay Sacuudiga soo gabagabo jawiga aad u macaan casharada la qaadanayo kuwa xiisaynaya dadka ahaa guud ahaan markaan soo duubo wuxuu ka hadlayay tababarkan Force Education Plan runtii wax badan waa ka faa'iideysanay waana dabaqi doonaa insha Allah taala waan ugu shaqeyn doonaa Puntland guud ahaan waxaan ku faraxsanahay in maanta xilliga iyo jawiga maalin jimcaha iyo ciida isbuuca uu soo gabagaboobay aad baan kaaga mahadcelinayaa xayir shaqadii badnayd aad qabatay intii uu socday tababarku sidoo kale waan mahadcelinayaa hay'adda Safer Work Mercury iyo Ismaaciil oo safar dheer soo galay si ay noo siiyaan aqoontan aan qaadanay aan ugu biirino aan haynay contribution ka soo geynay isla markaana wax macna leh meesha laga soo saaray waana mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan joognay Shimbari oo aan ku qaadanaynay tababar ku saabsan Force Education iyo Voter Registration oo inoo qabatay hay'adda Safer Work runtii waxaan ka faa'iideynay casharo badan wax badan oo naga maqnaa ayaa nagu soo saaciday aan isleenahay hadda asatibak ahaan waa dabool doontaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tababarka inaan qaato 5 maalmood aan si guul ku dhamaysto waxyaabahan ka faa'iideyno waxaa ka mid ahaa strategic plan kala dejiyay operation plankiisii inaan wax ka dejinay annagu aan qayb ka qaadanay dadka ku leenahay iyo access badan aan sameynay dhaqaaq badan aan sameynay wax badan aan fidishnay gudaha